dowladaha Soomaaliya iyo Tanzania ayaa maanta si rasmi ah heshiis isfahan ah waxa uu ku dhaxmaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka oo ku qotoma arrimaha cilaaqaadka diblomaasiyadda gaashaandhigga caafimaadka iyo dalxiiska. furitaanka munaasabadda saxiixa isfahanka ee dhinaca heshiiska labada dal oo ay khudbado ugu horeyn ka jeediyeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Tanzania iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa dhammaantood muujiyay heshiisyada xagga isfahanka ay gaareen labada dhinac ay qayb ka yihiin xoojinta cilaaqaadka dhinaca iskaashiga amniga, difaaca, cilaaqaadka dalxiiska iyo arrimaha caafimaadka. madaxweynaha xasan sheekh bishii afraad ee abril ayuu markuu booqasho rasmi ah ku tagay dalkaas ayaa xiriirka la soo saleeyay taasaana ka dambeysay in halkan la isugu yimaado maanta. waxaa laga wada hadlay dhinacyada kala duwan, waxaa la kala saxiixday MOUs iyo iskaashi guud, heshiis iskaashi guud iyo isfahano. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Daawud Aweys Jaamac oo warbaahinta kadib la hadlay ayaa faahfaahiyay in fursado shaqo iyo mid xagga horumarinta ah uu leeyahay dalka isfahankani. heshiiskaasi waxa uu ka kooban yahay iskaashi dhinaca dalxiiska ah oo labada dal ay yeelanayaan. caadiyan dalxiisku waxa uu ka mid yahay tiirarka dhaqaalaha ee wadamada gobolkan ku yaala intooda badan. Soomaaliya oo haatan ka soo kabsanaysana caqabadihii ama dhibaatooyinkii soo marina waxa ay ugu talagashay in heshiiskan uu ka mid noqdo heshiisyada la doonayo in lagu soo nooleeyo dalxiiska Soomaaliya. dabcan muhiim ayuu inoo yahay heshiiska aan la saxiixanay Tanzania sababtoo ah dalalka gobolka ku yaala waxa uu ka mid yahay ama uu noqonayaa Tanzania dal ka mid ah dalalka dalxiiskooda uu aad u sareeyo oo 20% dhaqaalahooda inta uu ka soo xaroodo waa arrimaha dalxiiska. marka waxaan u aragnay maadaama ay khibradaasi ina dheer yihiin inaan iskaashi yeelano dalxiiska Soomaaliya oo haatan dhulka laga soo kicinayana aan khibradahaasi isdhaafsano si aan markaasi annagana u hiigsano ama baan u gaarno horumarka dhinaca dalxiiska laga sameeyay dalalka gobolka oo Tanzania ay ka mid tahay. ka wasaarad ahaan wasaaradda dalxiiska iyadoo dejisay siyaasadda dalxiiska ee dalka haddana waxaa jira daraasad aan sameynay sanadkii hore oo ku saabsan sidii dalxiiska Soomaaliya kor loogu soo qaadi lahaa. waxaana ka mid ah natiijooyinkii ka soo baxay daraasadaasi inaan sameyno macad lagu barto culunta dalxiiska oo aan filayo in dalka Tanzania aan iskaashi dhow arrintaas kala yeelan doono oo wasiiradda dalxiiska ee Tanzania in wada hadalkan yeelan ay ku jirtay in aan dhinaca horumarinta aqoonta ama tacliinta dalxiiska aan iska kaashano. waxaana filayaa taas in ay dabooli karto baahida dhinaca adeegyada dalxiiska aan u baahanahay xirfad ahaan, dhinac kalena ay abuuri karto shaqo abuur dhalinyaro badan oo markaasi dhinacaas u wacan karaan oo ay xirfadaasi baran karaan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay heshiiska kadib markii shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahiyay heshiisyada lagu gaaray isfahanka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Tanzania iyo waxyaabaha ay ku soo kordhinayaan dhinaca horumarka labada dal. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, Muqdisho.